sheekadii Maxamed iyo bahalkii yeyga ahaa. Maxamed wuxuu ahaan jiray wiil aad u yar oo la noolaa adeerkii, waxayna ku noolaayeen guri aad u weyn oo ku dhex yaalay meel u dhow kaymo waaweyn. Maalin maalmaha ka mida Maxamed wuxuu ka soo baxay gurigii, wuxuuna u soo baxay bannaanka. Kadibna wuxuu ka baxay iridii guriga, kadibna wuxuu u dhaqaaqay dhankii kaynta ee geedaha waaweyn iyo dhirtu ay ka buuxeen, xayawaanaduna ay joogeen. Wuxuuna rabay inuu halkaa ku soo arko shimbiro yaryar iyo digaagad uu xanaanayn jiray oo uu cunto siin jiray. Markii uu soo gaadhay shimbirihii iyo digaagadii yarayd, markii uu soo gaadhay uu yimid meeshii ay joogeen shimbirihii yaryaraa. Shimbiro yahow iska warrama, maanta waxaan idin soo qaaday cunto, waan idin siin doonaa. Kabacdina intaanu cuntadii siinba waxaa meeshii ka soo baxay makulaal ama bisad aad u weyn oo madow. Maxamed baa arkay bisadii oo wuxuu ku yidhi shimbirihii, ka yaaca waa bisad, ka yaacayaanay idin cunine. Waxayna eryatay shimbirihii yaryaraa. Kadibna Maxamed oo meeshii taagan waxaa ugu yimid adeerkii, wuxuuna ku yidhi, Maxamedow maxaa ku istaajiyey meesha? Inaga mari meesha oo ka soo dhaqaaqaynu xaafadii ama gurigii tagnee. Haye ina mari adeer, aynu xaafadii ama gurigii tagnee. Kadibna way soo dhaqaaqeen oo waxay u soo dhaqaaqeen dhankii guriga, waxayna imaadeen gurigoodii. Kadibna waxay soo socdaanba, ugu dambayntii waxay soo gaadheen gurigoodii. Kadibna markay gurigii galeen, adeerkii wuxuu soo xidhay iridii albaabka, gurigii bayna galeen. Maalin isagoo Maxamed ku ciyaaraya guriga hortiisa ayaa wuxuu maqlay cod ka soo baxaya kaynta ama geedaha dhexdooda. Kadibna wuxuu u soo dhaqaaqay dhankii kaynta iyo geedaha dhexdoodii. Markii uu soo socdayba wuxuu soo gaadhay kaynta dhexdeedii. Kadibna wuxuu arkay shimbirihii iyo digaagadii yarayd. Kadibna iyaga oo wada jooga Maxamed iyo shimbirihii iyo digaagadiiba ayaa waxaa soo weeraray bahal yeya. Wuxuuna eryaday shimbirihii iyo digaagadiiba. Maxamedna wuxuu kaga dhuuntay geed yaroo meesha ku yaalay. Wuxuu eryadaba isla markiiba wuxuu bahalkii qabtay digaagadii yarayd oo aad u gaabinaysay. Kadibna afkuu gashaday oo uu cunay gebigeediiba. Mar kale wuxuu u soo jeestay haddana dhankii shimbirihii yaryaraa. Kadibna wuu eryaday laakiin way ka baxsadeen. Maxamedna wuxuu kaga dhuuntay oo ka koray geed. Kadibna wuxuu ku yidhi shimbirtii yarayd, bahalka madaxiisa ku dul wareeg, xadhig baan dabada kaga xirayaaye. Waxay shimbirtii ku dul wareegto oo ku dul wareegtaba bahalkii uu dawaqay oo meel uu dhaqaaquu garan waayey. Kadibna xadhig buu ku xidhay oo geedkii buu ka soo laalaadiyey. Bahalkii wuu taahayay oo wuxuu lahaa, muddo yar kadib meeshii waxaa soo gaadhay niman ugaadhsato ahaayoo doonayay bahalka inay ugaadhsadaan. Kadibna Maxamed wuu u yeedhay nimankii oo wuxuu ku yidhi, bahal baa halkan ku xidhana kaalaya oo qaata. Kadibna nimankii way imaadeen oo waxay soo kaxaysteen gaadhi shabag ka samaysan. Kadibna bahalkii bay ku dhex rideen oo way kaxaysteen. Markii bahalkii nimankii ugaadhsatada ahaa ay gaadhigii shabaga ahaa ku kaxaysteen, Maxamed iyo adeerkii waxay isku soo raaceen gurigii. Waxayna yidhaahdeen, haddii kadib wax cunaya xoolaheenna iyo digaaggeennuba ma jiri doonaan. Sheekadeennu maanta intaasay ahayd.